waqtiyadu ma sidna maalinta jimca waa ka sii fadli badantay waqtiga kale jimca ramadaanna de isaga hadalkiisa badda nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam fiihi saacatu laa yuwaafiquhaa cabdu muslimu qaa'imun yusalii yas'alu allaha tacaala shay-an ilaa acطaahu iyaah wa ashaara biyadii yuqaliluha nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam saacad baa ku jirta aanu waafiqin qof muslimi isagoo taaganoo tukanaya oo ilaahay wax weydiista ilaa iyo ilaahay waa siinaya oo waa saacadee culamadu laba xadiis ay soo arooriyaan laba meeloodba oo ku tilmaamaan jumcada markuu mimbarku imaamku saaran yahay ilaa iyo intuu salaada ka baxayo waxaa kaloo la tilmaamaa waqtigan aynu hadda joogno jumcada casarka dabadii ilaa iyo ay ka dhacayso saacad ku jirta waana waqtiyada dikriga ugu fiican qofku inuu wardiyo bacda salaati subx haddaad fadhiisato oo wardidid ilaa cadceedu kaaga soo baxdo oo aad laba ragcadood tukatid wuxuu nebigu ku tilmaamaya inay tahay maxay xajatun taama buu nebigu ku celiyay waa xaj dhammaystiran baa la yidhi adoo hadda masaajidka iska fadhiyaad yeelatay xaj bacda alcasarna isna waa waqtiga fadliga badan leh haddaad weliba casar jimce hadduu noqdo saacatulijaaba ay culamadu sheegayeen baa ku jira walidalik waxaynu leenahay asminada faadilka ah ramadaan oo dhan baa ku jirta in laga faa'iidaysto jimcayaasha ramadaan baa ku jira in laga faa'iidaysto bacda salaati subax baa ku jirta in laga faa'iidaysto thuluth leyl alakhiir baa ku jira in laga faa'iidaysto qiyaamu leyl baa ku jira in laga faa'iidaysto leylat lqadri baa ku jirta in laga faa'iidaysto cashri alawaakhir baa ku jira in laga faa'iidaysto waxaasoo dhanna waxaa lagu wada tilmaamaya ama xaj taama ama cimro u dhiganta xajkii nebi maxamed mid lala xajay u dhiganta ama dembi la dhaafay ayaa kusoo wada arooray ama baryo la aqbalay idan awqaadka faadilka ee nebigu tilmaamay maalinta carafaa ka mid ah awqaadda faadilka ee nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah labada aadaan inta udhaxaysa markuu mu-adinku aadimo ilaa iyo iqaamada inta udhaxaysa iyaduna waa waqti adducaau laa yuraddu bayna alaadaanayn aw bayna alaadaani waliqaama fadcu nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu daawuud iyo tirmidi iyo imaamu axmed ba soo saareen sheekh albaanina saxiixa ku tilmaamayo ducada lama celiyo labada aadaan dhexdooda labada aadaan waa iqaamada iyo aadaanka nebigu calayhi salaatu wasalaam hintaani laa turaddaani aw qallama turaddaan adducaau cinda الnidaa wa cinda اlba's xiina yalxamu bacduhum bacda xadiidkana wuxuu kaloo sheegayaa nebigu baryada inaan la celinin ama ay yarta inta la celiyaa marka aadaanku dhaco iyo marka jihaadka lagu jiro waxaa kaloo ka mid ah waqtiyada ducadu ay fiican tahay salaada dabadeed salaada dabadeed lababa culammadu way ku fasiraan qole waxay yidhahdaan waa marka aada dhammaysato ataxiyaadka inta aanad salaamo naqsan marka aad ataxiyaadka dhammaysato inta aanad salaamo naqsan culamada barh kalena waxay qabaan waa marka salaada aad dhammaysato kadib haddaad ducaysato yacni ducaa imaam la sugaa ma jirto oo aan dadku dareeraynin ilaa iyo imaamku uu duceeyo mooyaane laakiin waa waqti aad iska ducaysan karto waana waqtiyada ducadu fadliga badan tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi ayu ducaai asmacu ilaahay rasuulkiisiiyow xadiiska tirmida warinaya waana xadiis xasan asuu sheekhu sheegaya albani ayu ducaai asmacu duco teebaa loogu maqal badan yahi rabbi wuu ajiib badan yahi wuxuu nebigu ku yihi jawfu leyli alaakhir wa duburu salawaati almaktuubaat habeenka bartanka xaggiisa dambe habeenka xaggiisa dambe iyo salaadaha maktuubaadka ah gadaashood buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam walidalik buu nebigu waa kii saxaabiga u tilmaamayey mucaad ibnu jabal wallahi mucaada waan ku jecelahay buu nebigu ku yidhi calayh isalaatu wasalaam ninkaa uu jeceliye uu u dhaartay inuu jecelyahay buu wuxuu ku yidhi ha ka tegin salaad walba dabadeeda inaad tidhaahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika inaad tidhaahdo salaadna dabadeeda ha ka tegin acmaashu waxay ku kala fadli badan tahay ayuhalaxiba meesha lagu sameeyo oo acmaasha maka lagu sameeya
waa ka fadli badantay acmaasha meel kale lagu sameeyo. salaada xaramka lagu tukadaa waa 100 kun oo salaadood, yacni 56 sannadood waxaad tukanaysay hal midoo aad maka ku tukata baa u fadli dhigantaa. hal midoo aad maka ku tukanto ayaa u fadli dhigantaa. idan maki waa ka fadli badantay, madiine waa ka fadli badantay oo 1000 salaadood bay u dhigantaa salaadeedu masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaad ku tukato. masaajideennani waa ka fadli badan yihiin suuqyadeenna iyo guryaheenna oo 27 darajo ama 25 bay ka badantay. haddaad jamaca masaajidka kula tukato ta aad guriga ama suuqa ama dukaankaaga ama hudheelkaaga ku tukatid waxaa ka fadli badan 27 jeer ama 25 jeer ta aad kula tukato masaajidka. bale intaad u soo socotaba khudbo kastoo aad soo dhaqaajiso tallaabo kasta wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة بنبي. salaadaad gurigaaga masaajidka ku tukataa 25 bay dheertay taad guriga ama suuqa ku tukato. hadduu midkiin weysadiisa wanaajiyo oo masaajidka u soo kaco isagoo aan dan kala lahayn tallaabo kasta uu soo qaado dan baa lagaga daadiyaa, darajana kor baa loogu yeelaa. markuu soo galo masaajidka hadduu tukado malaa'igtaa u ducaysa inta uu meesha uu ku tukaday uu fadhiyo malaa'igtaa u ducaynayso leh allahuma salli calayh, ilaahay ow kan u naxariiso dembigiisa dhaaf, malaa'igta ugu ducaynaysa. qofkii nabigu yidhi inta uu salaad sugayana salaadunbuu ku jiraa. haddaad casr markaad tukatay fadhiisato aad tidhahda maqrib baan sugayaa, intan aad fadhido salaad baad ku jirtaa. inta aad fadhido masaajidka aad iska fadhido waxaad la mid tahay nin tukanayo salaad ku jira baad la mid tahay. acmaasheenna waxay u kala fadli badan tahay siday u kala anfac badan tahay dadka, tacadiga ay u kala samayso. oo qofka dadka hanuunka ugu yeedha hadday hanuunkaa qaataan dee qof wal oo hanuunkaa qaatay ajarkuu leeyahy ajar la mida buu leeyahy. maanta imaamu shaafici raxmat ullaahi calayh cilmiguu ka tegey uu ikhlaas ku daro qof kastoo sidii uu salaada u sheegay intuu cilmigaa ka bartay ku tukaday intii camal ahayd in leeg buu yeelanaya isna. haddaad suuqa qabato qof u yeedho tidhaha warkaalay salaada tuko salaada bartid, qofkaasi intuu salaad tukanayo tiisi isagu uu leeyahay adna in leeg baad la leedahay. intuu salaad tukada in leeg baad leedahay. idan acmaasha tacadiga acmaasha gudubta way ka fadli badan tahay acmaasha aan gudbin. walidalik bay culamadu waxay dhahaan faraa'idda marka laga yimaado maxaa u fadli badan sunanka? alcilmu bay yidhaahdaan. maxaa ku xiga? aljihaadu. maxaa ku xiga? addikru bay yidhaahdaan. culamada qaarkoodna khilaaf bay geliyaan way isweydaarayaan. yacni waa acmaal tacadida kuwa kani, saa daraaddeed baa laga horreysiiyey dikriga inay ka fadli badan yihiin. kayfiyada loo sameeyaa kala fadli badnaysiin karta. oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ama qur-aankaba ilahay wuxuu leeyahy qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun. salaada lagu khushuuca way ka fadli badantahay salaada maxay aan lagu khushuucin. salaada markaad ku jirto qalbigaagu soo jeeda waa adagtay inuu soo jeedo, waa xaqiiqa. laakiin musaawala waa mujaahada qofku hadduu sameeyo wuu soo jeedin karaa hadduu dadaalo. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. haddaad jihaatanto naf iyo shayطaan la jihaatantid nabigu wuxuu leeyahy عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها. nabigu wuxuu yihi عليه الصلاة والسلام addoonku wuu tukadaa markaasaan salaada looga qorin nus mooyaane, 3 dalooloo dalool mooyaane, 4 dalooloo dalool mooyaane, 5 meelood meel mooyaane, 6 meelood meel ilaa uu nabigu gaadhsiiyey 10 meelood meel mooyaane. yacni dadkan safka ku wada jiraa isku salaad maaha, isku ajarna maaha. fadiiladii jamaacada waa wada heleen, fadiiladii salaadoodana waa heleen,
لكن مع ذلك سلاد وكلا بدنتي ولذلك النبي يقول حليه مدنا سلاد هذا نص بوليه مدنا الربع بوليه مد خمس بوليه مد سدس بوليه مد ثمن بوليه مد تسع بوليه نبين بوليه كان شيء اكتهي كي النبي محمد عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقاعدة عامة متابعته إني عمل كين رسولك عليه الصلاة والسلام ويكاده قف بقفكو النبي عمل كيسه وقدوية هي أي عمل كيسه كفض بديه إلا النبي محمد عيد قارس أما جرت عليه الصلاة والسلام أعماش إنه وحي وكلا فض بدنتي سيدي وكلا إخلاص بدنتي إلهي درتي مياه يسوي حوغا كلا وغش كجرا حلقة يا بيناد وح بحسه فقير كات كان حدايا دو سيسي إلهي درتي مرة كقارنا وحلقة يا با إناد ألغو شيك أبو بحسه مرة كقاركود وحلقة يا بابا إناد بحسه ورياد عيبو من اسكسي وح إلهي درتي كاماها لكن سحبه وقنا ورياد عيبو من مصري دad ka dhaxdoodi iska jeedi gacantuun baad isaga faafisay niyadaad wax ku bixisaa intay leeg tahay baa waxa ku xidhan amalka aad sabaynayso iyo noocu yahay walidalik kullama cibaadadu ay ka fog tahay mubtilaadka dib baan ka sheegi doonaaye way ka aqbal dhowdahay ama way ka koraysaa kullama cibaadadu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay xataa niyadu hadday khaalisnimo tahay in lagu gaari karo xataa camal aanad samaynin niyadu hadday sarrayso oo aada mukhlis tahay xataa camal aanad samaynin inaad gaari karto isagoo nebigu jihaad tegay oo soo socda soo noqday oo weliba uu ahaa jihaadadii ugu adkaa ghaswatu tabuuk wakhtigan arbiciinadu ka dhacan khaliijka baa la baxayay kulayla oo naftu dad ka baxayso ayaa rag saxaabada ka mid waayeen waxay fuulaan iyo waxayna iyagoo ooyayay hadheen markuu nabigu yiri waxaan idinku qaaday idin ma hayo dabeetana markuu nabigu soo socday buu wuxuu yiri inna bil madinati la aqwama magaaladii madiina rag baa jooga aynan dooxa ka tallaabin ilaa inagala tallaabay وإن عمل يعني ولا ينقبنا وين لا قبطي waxay yiraahdeen ya rasuulallah wa hum bil madina ma yago madina jooga hadana iyago madina jooga buu nabigu leeyahay alayhi salatu wasalaam habasahum al udhr buu nabigu wa fi ba'd riwayat habasahum al marad yani way samayn lahaayeen way awoodi waayeen de waa kuwii ilmeynayay markuu nabigu ka tagay amalka inay sameeyaan bay rabeen laakiin way awoodi waayeen idan bi ikhlaasihim bay waxay ku heleenba iyagoo fadhiya kuwii soo jihaatamay camalka heleen oo kale heleen iyagoo aan meel laba u bixin acmaashu waxay ku kala fadli badan tahay waqtiga ay dhacdo mooyaane xaaladda ay ku dhacdo xaaladda maxaynu uga jeednaa maalan xaalad loo baahan yahay ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay aw itcaamun fii yawmin dii masqaba baa la yidhi ku wax bixiyey quudiyey miskiin ama agoon maalin quudiyey maxay maalin dee dadku dhulka ku nabayo gaajo ay jirto dee isku mid maaha markaad baahan tahay waxaad hesho adoon 3 casho wax cunin ninka koob shaaha kuu shubaa koobkaasi miyuu la mid yahay adoo dheragsan koobka lagu shubay laba koob oo isku mid maaha markaad qaxdeena baadiyaad joogteen ninka baris cad ku siiyey dee bariska cadi uma dhigmaynin hilibgeela maanta hargeysa lagu cuno waayo waa ka baahi badnay idan xaaladda lagu sugan yahay na camalka way waxbay ku kordhisaa walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay alcibaadatu fi lharj ka hijratin ilay marka dadku istilaan u leele waxbaba la kala garan waayo qofka isagu iska cibaadaysta cibaadadaasa waxay u dhigantaa buu nabigu leeyahay hijra aniga laysoo hijrooday fitanka iyo dagaalka iyo bariya baas iyo waxa inta iskaga baxo isagu iska laazima cibaadadiisa cibaadadaasi waxay u dhigantaa buu nabigu leeyahay ka hijratin ilay hijra aniga laysoo hijrooday ama nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya bada alislaamu ghariiban wa sayaudu ghariiba fatuuba lilghurabaa buu nabigu yidhi islaamku ghariibnimo ku bilowday ghariibnimadaa hore raggii joogay
waataynu dhibay ka ajar badan yihiin acmaashoodu ku waqrida qariibnimada ku dambe kuwa joogaana haddii ay camalkii kuwaasi la yimaadeen oo kale la yimaadaan iyana wuu fadli badan yahay walidalik buu nebigu wuxuu ku tilmaamay 50 minkum ajarkood bay leeyihin markaasay saxaabadu yidhaah saxaabadu nebigu wuxuu ku leeyahay qaar xagga dambe joogaa 50 minkum la ajar noqon doona markaasay yidhaah yaa rasuul allahi see ugu jirtaa masaladu markaasu wuxuu yihi idinku cid idinku caawisa dee dowladdii islaamiga ahayd iyo waxba markaan dhisano waa xooganahay laakiin kuwaasi wakti aanay waxbaba haysanin oo meel lagu gaaloobay oo balaaya ka taagan tahay bay diinta ku mintideen waxay la mid tahay buu nebigu yihi diintay haysteen qof dhuxul daba haysta dhuxul intaad xejin kartaa dee dhuxul gacanta lagu saaro intaad adkaysan kartaa kuwa waktigaa jooga akhiru zamaanka noocaas iyo cibaadada haddana ku dhegay waa kuwa dhuxul daba haysta bay la mid yihiin buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam idan xaaladda cibaadada lagu sameeyey iyaduna wax badan bay ka bedeshaa oo maalan cibaadada ninka dhallinyaradii sameeya cibaadada odayga way ka fiican tahay soo saa ma ogidin dhallinyarada shaabun nasha'a fii cibaadati illaahi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam odayga dembiga lagu sameeya maalan zinada odaynimada lagu sameeyaana way ka dib badan tahay zinada dhallinyaronimada lagu sameeyo walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدح قيامها إلهي لما هضمه وما طاهريه وعذاب كل البيلي صدح دا روام حي وصدح قف وحي اللي قف لي وحانا هين ليلي نبغو حلي شيخ زان ودي زينيستي ودي دور صني بقى اللي قف لي يينو دمر كوار كو عرورتي سي هبلي سيو كلين لما تهي iyo inuu dhowrsanaada laga filayay shahwo eridaana ma hayso walidaalika isagoo daadaasa haddana haddii loo taag waayo kaasi kuwaan aakhiro guulaysanayn buu ku jiraa shaykhun zaan buu nebigu yidhi wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wacaa'ilun mustakbir buu nebigu yidhi midaan faqiiroo waxba haysanoo kibray dee nin dowlad haysta iyo madaxa iyo lacagle iyo kuwa kibirka waa laga filayaa faqiir hadduu kibro ka war nimaan waxba haysanin hadduu kibro oo isqaadqaado kaasina waa waxaan loo filaynin kan waa laga yaabaa nebigu ilaahay qur-aanka waa ku tilmaamaya kalaa ina alinsaana la yatqa an ra'aahu istaqna bini aadamku waa qooqaaba ilahay waa kibraa markuu arko isagoo kaaftoomay isagoo amarkiisa wuxuu yidhaahdaba la fulinayo ama wuxuu doono samayn karoo lacag haysta laakiin midaan waxba gacantiisa ku jirin oo faqiira hadduu kibro kaasina waa mid subxaana leh idan waxaa la tilmaamayaa waxa cagsigiisii inuu yahay acmaashu hadday ka madhnaato mubdilaadkana way ka fiican tahay acmaashii nawaaqista iyo mubdilaadku la socdeen yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmani waladaa baa ilahay kuwa iimaanka laga helayo sadaqooyinkiina ha ku borinina bilmani waladaa manigu waa mana sheegasho gallad sheegasho berigii caynkaa waanigii wax idin siiyey berigii caynkaas waanigii caynkan yeelay kuwaa soo baahan intaasaan siiyey waxaaga haddaad ku mana sheegato camalkii wuu buraya ajarkii heli maysi haddaad adaa ka dabageyso wax dadka dhibayana erayo xunxun iyo maag iyo wax haddaad ugu darto qofka adigoo wax siinayabana iyana waa kaa duminaysa acmaasha wax badan oo buriyaa jiro aan riddo ahayn مثلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون علماء waxay leeyihiin riddo maaha laakiin waa muxbit lilcamal مثلا salaadii casare laga tegey waa kii nebigu tilmaamay maalintaa camalkeeday burinaysaa riddo maaha bay leeyihiin qolada aan qabta inaanay tarku salaa inaanay kufri ahayn mid iyo labaadii laga tago inaanay kufri ahayn qolada qabta waxay leeyihiin riddadii maahay waxa weeyaan maxay ومبطل للعمل ومن مبطلات العمل إذن waxaynu tilmaamaynaa acmaasha saalixa aad samayso kullama aad ka fogeyso dunuubta iyo waxyaabaha kalena iyana waa wax camalka ajarkii laga helayay badiya
waxyaabaha badiya waxaa ka mid a bay culammadu yidhahdaan fadiilatu ijtimaaci alacmaal bacd alacmaal haddaad maalin isku samayso ay kulmaan iyana way tiro bataan maxaa ka mid a haddaad waa barisato adoo sooman maalin hadday isugu kaa kulmaan soon iyo miskiin aad quudiso iyo janaaso aad raacdo haddaad kulmisato soon iyo janaaso aad raacday iyo miskiin aad quudisay iyo qof buko aad soo booqatay afartaa camal haddaad maalin kulmiso nebigu wuxuu leeyahay qof kuma kulanto ilaa maalinta qiyaame waxaa lagu yidhaahdaa jannada albaabadeeda kaa doonto ka gal maantaad soomanayd adigoo sooman baad janaaso raacday xabaalahaad geyso waad soo aastay waad soo noqoto dhakhtarka ama guriga mid yaalloo bukay baad soo booqatay miskiinna waxbaad siisay afartaa camal hadday maalin kuu kulmaan aad kulinsisato nabigu calayh isalaatu wasalaam subax buu wuxuu yidhi man asbaxa minkum alyawma saa'ima waar maanta yaa sooman abi bakar baa yidhi aniga markaasuu nebigu yidhi maanta yaa raacay man tabica minkum alyawma janaasa yaa janaaso raacay abi bakar baa yidhi aniga maanta yaa miskiin wax siiyey buu nebigu yidhi abi bakar baa yidhi aniga maanta yaa soo booqday buu yidhi qof buka abubakar baa yidhi aniga markaasuu nebigu yidhi ma jtamacna fii imri'in ilaa dakhala aljanna marka laydin leeyahay abubakar dad buu u fadli badnaa cidla maaha de bilaashi maaha wax lagu fadli bataye waa iimaan iyo acmaal waa acmaal ay samaynayeen dadka kaliyo u feejignaayeen weliba culamada badh baa waxay yidhahdaan salaad subax baa su-aalaha la isweydiinayay salaad subax intuu ku soo socduu intanba soo sameeyey idan ayuha alxiba waxaynu joognaa bil ramadaan waxaynu u baahanay inaynu acmaasheenna tiro badino kow siday u kala fadli badantay inuu ugu dadaallo ramadaan waxyaabaha ugu fadli badan leh waxaa ka mid a qur-aan akhri waxyaabaha ugu fadli badan leh baryada ilaah iyo ducada iyo dikrigaasaa ka mid ah salaadaha iyo wakhtiyada la tilmaamay baa ka mid ah waxaasoo acmaal aynu soo sheegayna bay ka mid ah haddaba iyadoo ramadaanna lagu jiro waxaasoo camalana la tilmaamay mid walba in dembiga lagu dhaafo hadday ramadaan dhammaato iyadoon dembigaaga la dhaafin dee maxruumkii nebi maxamed sheegayey ee jibriil iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isugu aamiineen midna ilaahay u baryey midna aamiin u yidhi ayaad gelaysaa habaar ka weyni ma jiro habaarka jibriil iyo nebi maxamed inuu kugu dhacana oo ah in bishaa lagu dembi dhaafi waayo ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu acmaasha inaga aqbalo siday u kala fadli badantayna inuu ina waafajiyo bishaasi intuu dembigooda dhaafay inuu inagu daro intii naarta laga xoreeyey inuu inagu daro intii camalkooda la aqbalay in alla subxaana wa tacaala inaga yeelo inaga iyo inta muslimiinta ee kaleba inteennii dhimatayna in ilaahay u naxariisto inta noolla alla uga daba naxariisto wixii xaq iyo sawaab ku jirana in ilaahayna wada waafajiyo wasala allahuma cala nabiyi muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam والحمد لله رب العالمين